Assalaamu calaykum. Kulanka bulshadu waa daruuri. Dabcan bini'aadanka waa reyd, waxaana laga maarmaan ah in ay kulmaan. Hadda waa kuma Abu Zayd Cabdiraxmaan ibnu Maxamed ibnu Qalduum al-Hadraami oo ku magac dheer Ibnu Qalduum. Wuxuu dhashay 1332 wuxuuna dhintay 1406. Wuxuu ahaa baare Muslim ah, sidoo kale taariikhyahanna ah, waxaana lagu tilmaamaa inuu yahay aabbaha aasaaska u ah casriga ee taariikhda, cilmiga bulshada, dhaqaalaha iyo dimuqraafiga. Sidoo kalena waxaa lagu tiriyaa inuu yahay mid ka mid ah falsafad-yaqaanadii ugu weynaa qarniyadii dhexe. Ibnu Qalduum waxaa loo arkaa inuu yahay cilmi baare, sidoo kalena aqoon-yahan. Carabta iyo sidoo kale aqoon-yahanada reer galbeedka iyo cilmi baarayaasha daraaseeya arrimaha bariga iyo galbeedka waxay si wada jira ugu heshiyeen noloshiisa iyo hogaaminta dhinaca aqoonta oo ay ka mid tahay falsafadda iyo taariikhda. Marka si fudud loo eego, wuxuu kuu sharxayaa xaqiiqda cilmiga bulshada ee dhinaca aragtida. Sida uu sharxay Ibnu Qalduum, qofka waxa uu ku noolaan karaa oo keliya bulshada, diyaarna uma noqon karo in uu keligiisa noolaado. Ibnu Qalduum wuxuu aasaasay aragti ku saleysan cilmiga bulshada, wuxuuna yiri baahida dadka ay u qabaan isu imaatanka iyo isu soo baxa aadanaha ayaa ah abuur bulsho, xooggiisa iyo ammaankiisana kuma gaari karo karti shakhsiyadeed. Sidaas daraaddeed wuxuu u baahan yahay wadajir si uu wada shaqeyn ula yeesho dadka kale waddankiisa, si uu u sii adkaysto jiritaankiisa. Bayaanka ugu muhiimsan ee aragtida Ibnu Qalduum ee ah in sii wadashada dowladda iyo qaab dhismeedka dhulka u baahan yahay isu dheelatir u dhexeeya hogaamiyaha iyo bulshada. Wuxuuna diyaariyey xigmado uu kaga hadlayo arrimaha bulshada, wuxuuna ka sameeyey buug dhammaystiran. Waxaana hadalladiisa kuwa ugu caansan ka mid ahaa: kulanka bulshadu waa daruuri. Dabcan bini'aadanka waa reyd, waxaana laga maarmaan ah in ay kulmaan. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa hadalladiisa: hagaajinta nolosha bulshada iyo maamulada arrimaha dowladda waxaa aas-aas u ah in dib loo fiiriyo qawaaniinta si ay u wada badbaadaan dadkoo idil uguna hoggaansamaan dadka xukumayo.